إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geerida xanuunka badan ee ku timid dadkeena Soomaaliyeed iyo dalkeena Soomaaliyeed inta war degdeg ah Fahad Yaasiin oo Turkiga lagu sameeyay kooxda Damuljadiid ee Xasan Sheekh horkacayo ayaa lacag malaayiin dollar ah ku bixiyay dabinkaasi loo dhigay Fahad Yaasiin sidee ku fududaatay in Fahad Yaasiin oo dalka dibadiisa ku maqan asul la siiyo iyaasa loo mariyay warbixintan ayaa ku soo koobaya marka hore si haddii aad channelka ku cusub tahay daawade furo gambaleelka ama subscribe saaro si warbixinada maalinlaha ah ee halkan aan ku tabino aad ula socoto Fahad Yaasiin Xaaji Daahir markii ay wax ka qaadi waayeen kooxda Damuljadiid ee Xasan Sheekh hogaamiye waxay lacag waali ah oo cadadkeedu kor u dhaafayo 10 milyan oo dollar ku bixiyeen inay sumeeyaan Fahad Yaasiin taasi oo ay u mareen dad uusan wax shaki ah ka qabin xirfadlayahankan muddada ay raadinayeen kooxda Damuljadiid laf dhuun gashayna ku noqday kooxdaasi niman ay saaxiib ahaayeen isla markaana Caysh iyo Badar Wadaag ay isla soo qaateen muddo dheer kana wada tirsanayeen ururka Al-Ittixaad ayaa habeen hore Fahad xaflad casho sharaf ah u sameeyay waxay waqti iyo caways aad u macaan wada qaateen oo ay isxasuusiyeen waayo joogoodii ku aadanaa marxaladihii uu soo maray ururka Al-Ittixaad bilowgii markii ay Soomaaliya imaanayeen waxa la guda galay cunista cashada waxaana kooxda qaabilsanayd qaarijinta Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee qandaraaska ka soo qaadatay Damuljadiid ay bilaabeen fulista howlgalka nafta lagu dhaafsiinayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir subhanallah waytarkii guriyay cashada oo lacag kor u dhaafayso $500,000 la siiyay ayaa lagu wargeliyay in xilligan la gaaray soo afjarida Fahad Yaasiin oo qudha lagu dhaafsiinayo oo uu qabsado hawshii looga baahnaa taas oo ah inuu cuntada Fahad Yaasiin ugu daro sun Fahad oo warmooge isla markaana dhool cadayn iyo qosol aan dibnaha dhaafsiisnayn lagu mashquuliyay ayaa waxa la soo hordhigay saxuun casri ah oo cuntada ku jirto kana midab duwan kuwa kale ee saaxiibadii cuntada ku cunayaan si ay iyagu markaasi u gartaan maadaama ay cashada sun ugu dareen waxa la cunay cashadii cabaar kadib muddo lagu qiyaasay 20 daqiiqo waxa durba isbedelay midabkii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo durba waa uu madoobaaday Fahad Yaasiin wuxuu bilaabay in caloosha laga qabto oo suuliga uu aado sida ay ila xogaal ah inoo sheegeen muddo dhan 10 jeer ilaa markii dambe uu istaaga ka dhacay oo uu miir beelay ayay markii ay ogaadeen inuu dhulyaal yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana ahay nin aad u foojigan balse waqtiga iyo waayuhu ay ciileen tabar dhaxaana aysan ku jirin ragii dabinka u dhigay waa ay is-oysiiyeen oo telefoon ay u direen ambulance si isbitaalka loola cararo hadda xaaladda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir aad ay u liidataa dhaqaatiirta ku howlan la tacaalista caafimaadka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxay dadka ehelka u ah Fahad Yaasiin u sheegeen in cunada uu cunay sun halis ah loogu daray ayna adag tahay inuu ka kaco amarka alla mooye arrintan markii ay dhacday waxa loo sheegay hogaamiyaha nabadii nolol ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isagu ah madaxweynihii sagaalaad ee ugu daacadsanaa ee soo maray wadanka isla markaana aad ay markaasi u raadinayeen amaba ilaa iyo iminka ay doonayaan kooxda Damuljadiid in isna ay qudha dhaafsiiyaan Farmaajo ayaa arrinkan waxay ku noqotay mid walwal xoog leh markaasi u keeni karta taasoo hadda uu bilaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in cuntada iyo sidoo kale staafkiisa si aad ah uga warqabo maadaama saaxiibkiisii isla markaana ahay nin aad u foojigan oo aan la gaadi karin ay markaasi malaayiin dollar ku bixiyeen kooxda Damuljadiid haddaba arrinkan ayaa waxa uu noqday mid ay aad u hadalhayaan bulshada ku dhaqan dunida dacaladeeda ee afka Soomaaliga ku hadasha guud ahaan dadka ku sugan Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay noqotay mid ay aad u hadalhayaan inkastoo dadku ay ku sheegayaan in Fahad uu ahay nin foojigan isla markaana wadani ah haddase ay markaasi waqtiga iyo waayuhu ay ka daba yimaadeen waxaana Allah uga bariyeen inuu Ilaahay caafimaad taam ah siiyo cadawgana uu ka qabto nimankan kaarta ku dhacday ee Damuljadiid ee xaalufka ah ee xaraashka ah ee wadankeena hooyo loo soo diray Ilaahay uu ka qabto meel daran oo Ilaahay ka bixiyo waxaan idin ka codsanayaa bar muuqaalkan aad si gudbisaan saaxiibadin aad la wadaagtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha dhammaan waan salaamay meel kastoo joogtaan إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geerida xanuunka badan ee ku timid dadkeena Soomaaliyeed iyo dalkeena Soomaaliyeed intaba iyo dadweynahana loo tacsiyeeyo inna lillahi ma akhad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu isagu lahaa buu qaatay isaga ayaana walahu ma aata isaga bixiyo waahibo shay walbana qadar ilaahi buu ku sugan yahay booskiisa iyo meeshiisa ma dhaafo sidaas daraadeed waa lagu raali noqonayaa wixii yimaadaba
marka haddaba walaalayaal waxaa way dad fiican ama la iga sheegaan waddanka ma joogo meesha haddaan idinkala hadlayaayay waa masaajidka barakeysan ee xaramka ah qaybtiisa sare ayaan hadda joogaa salaadii subax baan u tukanay waxaan rabaa inaan halkan uga duceeyo isaga iyo inta badan oo kale oo geeriyootayba oo wanaagsan oo waddanka ka baxday runtii waa dhoweed markay gabadha ay geeriyootay la oran jiray hodan naaleeye dad wanaagsan oo kilibyadii la duubay oo culimadu arkay ayaa halkan aan maanta joogo cumro u sameeyay